waxaan aad u soo dhaweynaynaa runtii fursadan ay bixisay Dahabshiil Group ama shirkadda Samtel oo ah runtii fursad qaali ah oo aan ugu bishaaraynayno inay tahay wanaag iyo sharaf u soo hoyatay saddexdan gobol ee maanta halkan laga sheegay gobolka Bari, Gaardafo iyo Sanaag. waxaan leenahay waa arrin wanaagsan oo fursad ah oo ay isugu jiraan runtii markii aan wax yar isdultaago faa'iidooyin badan ay ka muuqdaan. waxaan arkaynaa haddii ay faa'iido lahayd oo wax soo galayeen shirkadda Samtel inay ahayd mid gacan kaliya gelaysa, inay maanta marka bulsho badan faa'iidadaas ay helaan fursad baa ku jirta. xagga kale haddii ay ahayd culaysku mararka qaybtood dhaqaale badan ay bixin jirtay shirkaddu, hadda gacan kaliya hadday bixin jirtay markan waxay noqonaysaa dad badan inay ka bixiyaan gacantooda ka baxdo. taaniyan waxay faa'iido u tahay dadka danyarta ah sida aad arkaysaan hadda inoo ku qorneed halka ama walaalkeen noo sharaxaya warqadaba ku taalla ninkii maanta awooda $2,300 waxaan u eg tahay oo wax laga yaabo haddii ay ku jirto akoonkiisa inaanay wax badan sii jirteen ama ganacsi kastoo lala aado faa'iidadiisu yaraan lahayd, inay fursad ugu jirto qofka $2,300 haysta maanta ee danyaraha ah inay insha allahu si degdeg ah uu u noqdo qof mulkiile ah oo ganacsigiisu ballaarto biidni illaah. waxaan ilaahayna ka baryaynaa in ilaahay ganacsigeenna inoo barakeeyo. waxaa kaloo faa'iido ku jirtaa mar kasta oo shirkaddu ay noqoto shirkad baaxad leh oo awood leh inay soo kororto wax la yidhaahdo shaqo abuur oo dhallinyaradeenna runtii shaqaala'aantu hayso inay ka hesho shaqo abuur oo shirkaddu ay noqoto shirkad baalan leh oo dakhli leh oo waxay noo soo kordhisaa. waxaan runtii muuqataa shirkaddu oo dee arkaysaa maqlaysaa weeye oo feebarkii baa socda oo xoog leh internetkii. dhinaca kale maxaan ku idhaahdaa marka loo eego arrintii ahayd iyana daryeel bulsho oo isna wax badan ka taraya dadka gudihiisa. waxaan moodaa shirkaddu xoogaa inay haddan carcar muujisay. waan soo dhaweynaynaa runtiina waan u mahad celinaynaa sida odayaashii iyo isimadu iga horreeyeen sheegeen wax badan bay ka tartay deegaanka. waan uga mahad celinaynaa. waxaan leenahay barakooba hana laga qayb qaato insha allahu. waana soo dhaweynaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.